السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام سمرك سودني تعالى ذيك جوكتان ومركز يوتيوب channel كنا في سلمي الجروب يعني عبد الرزاق محمد فضلا نضدك عصبت يوتيوب channel كذا سبسكرايب صار والله يقرأ أو شير كري ولو ذاك صعبت هذا عادي أدود مع سنتي مركز سودني تعالى ذيك جوكتان إن ما أنتوا حنديم وضع إن أرتا فنانين بدن أو لقول دعطة أو سمال شوجا أو هرجيس شوجا أو جيج سمال شوجا كذا لكن فنانين ما أنت يجي على كود سيتشي أو محل هذا على كود سيد عيو oo haddana iyagu wax jafaya oo iyagii dadka ku mashquulaya ayaan maanta idin wadaa kullu waxaan ma la wasweydiinaysaan xidigii geeska bariyaan dhaweyto calankooda hoos ku yartiifay ilaa iyo xagga hargeyso kaliya ma aha muqdisho qaar ka mid ah joogay showgi ku qabsanay magaalada muqdisho showgi uu ka baaqday oo waa laga joojiyay allah u naxariisto injineer Yiriso markii hore watiisa xogtigu soo gaarayso injineer Yirisona waqtigiisa dhamaaday injineer Yiriso markuu dhintay allah u naxariistay waxa la sheegay Saalax Carab iyo barwaaqalanjo in showga ku qaban lahayn muqdisho inuu baaqaday inta ka nimaadno xidigii geeska waxay bilaabeen waxaynu qaan YouTube yaal kala caawde waxaan arnay xidigii geeska ilaa 2012 ilaa maanta 2019 oo waa 6 sano oo xiriira fanaaniintii hargeysa haystay oo maanta rag YouTube intii soo fadhiisteen faaleeyo faale ka bixi ka cabanaya ayaan daradii ugu weyneed weeyaan aanu ma jeclaan ka hor dhaco balan yar daawano fiidiyogan ay kaga hadleen YouTuberska reer Soomaaliya hada reer Soomaaliya oo dhan maaha waa reer Soomaaliya oo kaliya balan yar daawano horta su'aasha arsha xaq u lahaa laakiin su'aasha xal weydiinaya asmaloob waxa weydiinaya maxaad bakaal ciro oo waqti dhaweytana caabaniyo lahaa wala soo weeraray ana ma garanayo laakiin balku socday markii horena maskaxayda ka siibatay oo aadna dadweynaha aan jecelahay in fanaaniinta dadweynaha arrinka laga jahay saaro in isma weydiinaya asmaxa ku weydiinaya dad baa jiray YouTube yale oo hadii jir markay ama heesaa la soo saaraan fanaaniinta dad baa jiray YouTube yale dad baa jiray YouTuberaysa dadka wuxuu ahaa xaqirin adiga ka wax ka duubay waa waqal waa YouTube ma hada TV maaha dad YouTuberaysa erayga iska sax aan ku saxna hadii aan saxi karin soo saaraan wax kaga sheega ama waxaan ahayn ama heesoodo kale u jeeda kala ka dhiga dadka iyo dadka qaarna la qaataan sidii ku haystaa oo haystaan laga yaabo adiga marka aan hees qaaday soo qaad ama wax aniga laftayda waxaan aan ahayn balay ka sheego lagu qoray waa iro aan garanaysaa dadku inay hum qaataan oo laga soo amro garanaysaa saasaad yeesho aan ka sameeyay dadka maxaa qoranahay su'aasha intaani kaaga jawaabay asmaloof ana kaaga jawaabiyay hees markaad soo saartay soo qaado ee bulshada soo dhex dhigto waxa la socotaa heesta adoo qaadiyo ifan ka soo qaad xaaskaaga u qaadasaaba waxaad ku tashataa heestaad xaaskaaga u qaadisay in dadkan aad soo gudbisay ay ka soo qof kastaba inuu niyeysto xaaskiisa samoolo socotaa heesta soo qaaday hadda adoo kaliya waxaad wadaaba laga yaabaa marka in ifraax gisaabad wadamka in xaaskaaga heesta markaad soo qaado adigu ku talagal qof kastoo la maalin inuu gabadhiisa u qaadanayo hees kastoo soo saartay mawqaf ama waaqac markaa taagan ayaa lagu saweynaya weligeed yaa leeyahay bay jirtay tusaale yar gaama ku soo qaadanaya Axmed Cali Cigaal wuxuu oran jiray bad inay madow tahay biyo tahay ma loo yahay waa hees laakiin waxa loo ragay inuu jeeday maryan inay madow tahay anu inta kala ku darmay in qabiilada Soomaaliya cunsuriye ma jeceli saas uu jeeday la soco wax kasta la soo qaado Soomaalidu dhankay jecel inuu fasirin karaan marka adigu qasabeen waxaad ku qasbantay markaad hees soo qaaday social media timaado ama TV laga siday waxa la falanqeynayo ha ka xumaanin hana ka warwarin weligaan waa lagu falanqeynaya la soco هو سؤال في عن عرب هوتا سؤال شاسدان كاجا جواب waxaan aad u jecelahay horta imika dadka YouTuberada soo batay haba soo bataane ana waxaan oran lahaa inta ma sha Allah dadka YouTuberska soo batay maanta dad YouTube ku qorto oo wax weydii boqolkiiba dadka wax sharaxaya waa Hindi ama waa Chinese maxaad kuwaas ay naga badan adula YouTuberska soo batay 4 laga maqalay dibadaha waxa jirta inuu mashquulaan oo been fara badan iyo xama sameystaan macnaha waxyaabo ka xanaaqan in lagu mashquulo adaka koo waxaad ka baal ciyaaraysaa odagaaga xishoon sida carruurtaada la seexo umayd la cawi halkaad kala caweynayso laakiin inta halkan in la joogtay Soomaaliland gudaheeda
dhalinyaro waxaad arkaysaa youtube-kii khalad intay ka fahmeen channel samaystay lacag baan kasoo saarinaa bay ku leeyihin hadda badanaa ciroy san ula socdo kaar ma haystaan ay ku dalbadaan youtube-kiisa in lacag looga soo saari karo haddana waxay aaminsan yihiin subscribe-ku markuu bato inay lacag heli doonaan oo dhalinyarada dibadda ay ismoodayaan la shaqaysta waxaa jirta dhalinyaro reer Somaliland oo halkan joogo YouTube furtay oo doonaya lacag ka sameeyaan oo nagu mashquulad waxa ku sii yaa kugu mashquulaa kugu dhawaadaan kugu mashquulan guriga kugu xiga waa laga dhageystaa hadii sababta laga dhageysto waa lagu taageeraa kan ku falaqeynaya kugu mashquulan ku taageersi ku darso meel kasto joogto YouTube lacag bad ka sameyn kartaa soo soo ma socotid aday kan ka duban muxuu interest kugu qaba maxay tahay soo argisa ma joogo soo ka duubi maayo interest kugu qaba maxay tahay lacag buu ka sameynaya soo ma socotid adigu saddexdii habeenimo maxaad xuduubasa inaad lacag soo saarto xaruntaad maxay ka soo kaxay inaad lacag sameyso adiga odagaaga wax iskin baa fadhiisi inaad lacag sameyso reerkina u shaqaystaan kana uu shaqaysanaya wax walba waa shaqo waxaan kuu sheegayaa qof kasta inuu lacag sameyn karo hargeysa isagoo jooga tuulada ugu yar Somaliland tusaale wargaaman ku soo qaadanaya aan ugu yar faa'iido dadka daawanayay maxaa la dhahaa meel kasta joogto YouTube lacag bad ka sameyn kartaa halkan intaad ka baxdo YouTube furato oo waxa doonta kaga hadasho bax caana riyaa hargeysa tag Western Union ba ku taala tag taasa kugu xiraysa YouTube-ka lacag oo kuu sheegaan in hargeysa lacag laga sameyn karo YouTube dadkani kaar bay haystaan dadkaad ku dayanaysan haddana xilada la subscribe wax kale lagu raadiyaa laguma raadiyo aniga waxa ugu daran ba horta dadka waxa ka sii daran kuwaana aamina maalin kasta aan waan xanaaqay maalin su'aal weydiiyo waxaan idhi maalin kasta inta aan qancin lahaa qof bini aadana sidan maaha sidaasay ahayd walaal gacalas in lagu falanqeeyo lagu faaliyo fanaanad baa u tahay u dul qaadan ku leeyahay aniga xugmaanay magama hal laakiin u dul qaado in lagu faaliyo fanaanad baa tahay fanaanin baa la caaya waxa la doono lagu sameeyaa awala aadan buwaat la hargeysiman maayo been waat laga wuri iyadoo taa lagu sameeyay maxaad sameynay la xawl saas wadan ka daalayba maya dadka ku mashquulina dadka intaas sameeysan waxa leeyahay idinku aaminaad iska daaya aad iyo aad baad ugu saxan tahay waxa jira page badan oo fiiga oo laga sameeyay fanaaniinta dadka halka ku soo post gareeya waxaan leeyahay wajigaaga ku xamaalo ma xajeceshiin marka la idin qanciyo qofkii la soo hadla mooyeen taharmaysan dadka lagu ku gaabay horta ilaahay baa maxay tahay fanaaniinta adduunka lama arko sababta waxay laagtay mataqaana waxay laagtay ifra hargeyso gabowday ilaahay lama tasaarta xilligaas ila taaba ku jirtay laakiin markaan soo eegay waxay laagay ifra hargeyso gabowday ya hada ifra hargeyso goorma isbedeshay waa sidee balsaad la dhageysanayso ya qolati bari saxiix maxaa kaaga saxiix baargeysaana mar wada arkaysan waa ninkaas la dhacday intii leedina xashay inuu saxiix waxa iska lugeeyaa lama arko bal idinkoo nala joogo oo idin soo dhaweynayno oo idin sheekeynayno ayaa maxay tahay faano gowda lagu haysan ma sha Allah fanaanta caalamka inaad gaadhaan wallahi waxaan ka jecelahay ma jirto dad Justin Bieber iyo la tartamo saddex rihaana bir hore hormar gal laakiin dad ka cabanayso ninku taageero faranqo ka soo bixiyay wiriga hore because just you are the case and for you because sometimes it is just you to get it waxaan leeyahay abaad wax teedaysa si kale arsaaqad khayr qabta Allah ina siiyay in baan ku sheegay maama waxaan ku sheegay fanaanka iyo wariyaha waxa ka mamnuuca inuu ku hadlo luqad aan luqadiisa ahayn markuu dadka xusoo gudbinayo halkaas kaga noqon Ingiriis inaad ku hadasho waa ka mamnuuc taageerayaal badan baad leedahay Ingiriis dama yaqaan Soomaali ku hadlaan labada qof ee loo gudiyay inaan luqad qalaad ku hadlin wax ku turjumo kaliya waa fanaanka iyo wariyaha Ingiriis dad ku hadlaysa waa kuwa yandaro sababtoo ah dad Soomaaliyeed wax ku gudbinaysa anigu waxaad ku hadlaysa ma garanayo sababtoo taageerana waan ku ahay Soomaa maxaa ka dhigaysan ba hadda luqad qalaad ku hadlayso af Soomaali ku hadal hooyo waa wadgawdi waxaan ku leeyahay luqad maanta xilli maanta af Ingiriis lagu faanay taagnidii cibaadada taagantii kul waa qaraad waxaan geedkad ka sii laalaado waxa la qofku inuu caad si dhacay waxaan ku leeyahay hadda kulliba aan iska aaminsan ninka aaminsananta ku qurux badan tahay haddana af Soomaali ku hadal wariyaha iyo fanaanka waxa ka mamnuuca inuu ku hadlo luqad aan ahayn luqadiisa hooyo kaliya wax ku turjumo mooyaan فنانة كحشودة فنانة كحشودة ده كان ده فنانة كحشودة ضاوننا يقولون فنكو إيش كتير يعني
maxaa la dhahay sheeg horta asma waa marwo wax laakiin ayaan dara ah adiga odagaaga naska baal ciyaartaan wallahi waan ku sheegaan way iga talo aniga walaashay baa tahay maxaa la dhahay fanaanad Soomaaliyeed baa tahay kasiisoko fanaanad reer Soomaaliland tahay kasiisoko fanaanad Hargeysa goran nool baa tahay waxaan kula talinayaa walaalka caliso inaad fanka adiga odagaaga inaad meel ka wada ciyaarin sababtoo ah carruurtaada marxaladii waqti xaadirka wax tabinaysa carruurtaada marxalad ku sugin warmo aad iyo aad waad maasantii dhamaantii meel suudinay taxalada ka joogtaan walidii mahad celinayaa sidii ugu xirantiin channelkaad ugu xirantiin xidiga geeska igama aha xumaan asmaloofna igama aha xumaan taas u soo bandhigayo kaliya inaad qof walaalka haysta aad ma fiicna anu talan ku siinay qof walaalka weliga haysan adna horbalbaad gaaraysaa waayo inaad qof walaalka haysto waxay ka dhigan tahay inaad xaasid tahay xaasidnimada xidiga geeska maanta waa halka dhigtay inay kala biiqbiiqaan inay kala yaacaan inay qaar xamar ka dhacaan qaar Puntland qaar Itoobiya tagaan qaar la cunsuradeeyo oo ilaa aan ciribta hoosteeda lagu